السلام عليكم دمار Soomaaliyeed waa salaamantiin meel kasto dunida ka joogtaan waa macallin Daahir Dictionary kuna soo dhawaada cashirkii afraad ee course aan ugu talgalnay cashirkan maanta waa cashir aad u muhiim badan wuxuu ku saabsan yahay 20 verbs about policy 20 eray oo siyaasadda ku saabsan qaas ahaan ficil waayahay ardada kamid ah su'aal i weydiiyay wuxuu dhahay macallin aniga ugu yaraan 3 sano ayaan luqadda Ingiriisiga ku jiraa marka joornaalada oo kale markaan akhrinayo way ugu dhib badan tahay marka maadaama 3 sano experience aan haysto sababta igu adkaatay inaan journal aan akhristo ama TV markaan wax ka daawanayo television aan ka daawanayo qaasaan wararka aan u faham waayay boqolkiiba boqol markaas ayaan dhahay marka ardaygu luqadda Ingiriisiga sideeda waa vocabulary eray waay business vocabulary political vocabulary eray siyaasad healthy vocabulary marka waa sidaas qofka waxay markay ku xiran tahay markuu naxwi bartay kadib waxay ku xiran tahay hadba intuu vocabulary qofkan uu ka hayo qofkan haduu vocabulary badan uu hayo oo siyaasad vocabulary uu ka hayo education uu ka hayo health uu ka hayo marka qofkaas waxa waaye waa nin general ah marka sidaas daraadeeda iska dhisa political vocabularies ereyada siyaasadaha si aad ula qabsataan jaraa'idada iyo telefishinada waaye 20 kan eray waxa kamid ah ereyga ugu horeeya oo aad u muhiim badan oo ah unveil ereygan unveil waxaa laga wadaa daahfurid xaflad qofka inuu daahfuro ama shirkad uu daahfuro ama airport uu furo daahfurid maxaa laga wadaa daahfurid waxaa laga wadaa unveil waxaa laga wadaa meel cusub marka la bilaawayo dugsi marka la bilaawayo school oo kale ama hospital isbitaal oo kale ama airport ama jaamacad marka la furayo waxay u baahan tahay in qof uu daahfuro qof la yaqaano ama wasiir ah oo kale ama sheekh ah oo kale ama aqoonyahan ah marka sidaas daraadeeda unveil ayuu sameynaya qofkaas oo uu daafuraya unveil marka waa sidaas waayahay ereyga labaad waa erey muhiim asna waxaa loo yaqaanaa nominate waxaa laga wadaa u magacaabid jago oo kale sida wasiir ayaa loo magacaabay ninkan sida ra'iisul wasaare ayaa loo magacaabay sida wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirka arrimaha waxbarashada ayaa loo magacaabay marka nominate waxa waa u magacaawid ereyga saddexaad waa erey weyn asna invade waaye invade waxaa laga wadaa in wadan ama ciidamo wadan kale kala socda inay kusoo duulaan wadan kale marka invasion bay sameeyeen minis wadan kale bay kusoo duuleen marka invade waxa waaye ciidamo wadan kale soo duula ereyga afraad waa erey muhiim badan asna waxaa loo yaqaanaa withdraw waxaa laga wadaa kala bixid ciidamo wadan inaad kala baxdo ama goob ciidamo la geeyo oo kale inaad kala baxdaan sida maxaa la yiraahdaa ciidan haddii wadan la keeno kadib wadankan isku afgaran waayo ciidamada in laga saaro marka waxay sameynayaan withdraw ka saarid ciidamo kala bixid waayahay ereyga shanaad waa erey inta badan experience aan ku nahay Soomaalida waxaa loo yaqaanaa explode waxaa laga wadaa qarxid sida bamba inay qaraxdo oo kale sida maxaa la yiraahdaa amiina inay qaraxdo oo kale iyo walxaha wax walbo qarax sameeya sound sameeya waxa waa exploded nounkiisna waa explosion waayahay ereyga lixaad waa report ereyga report waxaa laga wadaa in aad wargelisid sida booliska oo kale dhacdaa aragtay qof la dhacayo oo kale booliska ayaa aad wargelinaysaa ama waxaad arkaysaa qof maxaa la yiraahdaa wax xun sameynaya oo kale report ama mobilkaaga ayaa kaa dhacay report ayaa sameynaysaa means wargelin ayaad sameynaysaa waa ereyga toddobaad waa erey weyn asna waxaa loo yaqaanaa oust waxaa laga wadaa in xukun laga rido madaxweynahan dhowr sano ayuu wadankan hayay oo kale sida afrikaanta u badan marka dadkii marka way mudaharaadeen so they oustay ku sameeyeen oo ah xukunkay ka rideen waayo ereyga sagaalaad waa asna overthrow waxaa laga wadaa afgambin in la afgambiyo dowladda nafta dhammaan in la afgambiyaba overthrow ay isku dayeen dadkaas inay dowladdii ay afgambiyaan waayo ereyga sagaalaad waa carry out
carry out waxaa laga wadaa carry out fulin in la fuliyo sida dil oo kale in la fuliyo sida qorsho kale in la fuliyo sida qarax oo kale in la fuliyo sida weerar oo kale they carried out that attack weerarkaas iyaga baa fuliyey carried out waayahay ereyga tobanaad waa erey muhiim ah waa erey la yidhaahdo accuse waxaa laga wadaa eedeen waa la eedeeyey qofkan waxbaa maxaa la yidhahda jagaa loo dhibtay ama macalin baa laga dhigay ardada sidii la rabay marka uguma soo bixin so accuse nounkiisna waa accusation waayahay ereyga 11 waxaa loo yaqaanaa disperse inta badan ciidamada sameeya falkan actionkan disperse waxaa la dhahaa kala eryid ama kala borin marka dad badan oo banaan bax meel iskugu imaado oo kale ciyaal oo kale ama dad weyn oo banaan bax sameynayo ciidamada marka waxaa loo xil saaraa inay disperse ay ku sameeyaan ay kala eriyaan dadka marka they were dispersing ereygan kale waxaa loo yaqaanaa waa kii 12aad murder ereygan murder waxaa laga wadaa dilid in qof la dilo naf la gooyo qaas ahaan qof siyaasadda ku jiro oo kale ama qof in la dilo marka murder waaye sorry marka aniga American accent waaye sidaas loo soo waaye ereyga kale 13aad waa release waxaa laga wadaa sii deyn sida xabsi qofkan in laga sii deeyo oo kale waa la xiray waxaa la ogaaday qofkan inuu dambi lahayn so he was released back dib baa loo soo deeyey ama release wax waaye soo deyn qofkan in la soo deeyo asoo wax lagu waayo oo kale ama in la daminto oo kale release erey kale waa arrest ereygan arrest waxaa laga wadaa xirid waxay ka soo horjeedaa release shalay baa he was arrested yesterday and he has been released today shalay baa la xiray maanta la soo deeyey marka arrest release way ka soo horjeedaa inta badan waayahay ereyga 15aad waa seize waxaa laga wadaa in ciidamo ay la wareegaan goob oo ciidamo kale gacanta ku hayay oo kale la wareegid in ay la wareegaan ciidamadan siday ula dagaalamayeen ciidamadan kale goobtii ciidamadaas gacanta ku hayay inay la wareegaan sida caasimad oo kale inay la wareegaan sida maxaa la yidhahdaa magaalo oo kale inay la wareegaan tuulo ay la wareegaan oo kale ama degmo ereyga 16aad waxaa loo yaqaanaa suspend inta badan waxaa lagu sameeyaa booliska lagu sameeyaa suspend waxaa laga wadaa xanibaad in xanibaad la saaro ninkan booliska waa laga shakiyey dharkaa laga dhigaa ilaa muddo suspend waaye marka ereyga suspend waxa waaye waxaan in la xanibo muddo gaaban kadib laska sii daayo oo ama barnaamijkii la sameeyo tusaale ahaan waxaa leeyahay waxaan leeyahay karaa hay suspend aan sameeyey macalinka suspend oo sameeyey classkan ilaa iyo muddo kooban 5 beri oo kale waayahay ereyga kale oo 17aad waxa waaye condemn maxaa laga wadaa ereyga condemn waxa waaye cambaareen sida falxun marka oo la geysto oo kale wadanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxay leeyihiin waan ka xunnahay waa cambaareynaa tushaan ugu tuuraynaa dadkii falkan marka condemn waxaa la cambaareen waayahay lama soo dhaweyn marka falkaas ereyga 18aad waa resign waxaa laga wadaa iscasilid inta badan inuu ra'iisul wasaaraha iscasilo oo kale ama madaxweynaha inuu iscasilo oo kale marka waxaa ka codsanaya mudaaharaadka waxay ka codsanayaan inuu iscasilo madaxweynahaas maadaama uu ku fashilmay waa amniga wadanka oo kale resign iscasilid waxaa jirto iyadoo oo phrase ah waa step down ereyga stepkii caadiga oo tallaabada down lagu daray step down waxaa laga wadaa sidoo kale iscasilid waa ereyga 19aad waa mar labaad attend waxaa laga wadaa ka qaybgalid sida shir buu ka qaybgalay ama kulan ayuu ka qaybgalay attend sida anaga iskuulada attendance waaye aan imaanayno marka qof hadduu meeshaas attend baa ka qaybgalay waana erey siyaasad waayahay kan ugu dambeeya maanta 20aad waa verbka ugu dambeeya waa announce waxaa laga wadaa ku dhawaaqid in wax lagu dhawaaqo beri wadadaas way xiran tahay oo kale sida muqdisho beri wadadaas way xiran tahay ama madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay
in maxaa la yidhahdaa shaqa u banaan tahay dadkii oo waa ka announce ku dhawaaqid. marka asxaabay waxaad qaadateen 20 erey oo ah 20 verbs about policy oo siyaasadda ku saabsan. American accent waaye, aniga British accent maaha dhawaaqayga. marka isku daya in ereyadan aad ku dabaqdaan insha Allah. exercise-kiisana hadda ayaa la soo tuuri doonaa. marka isku day inaad exercise ka shaqaysid. maanta exercise-ka wuxuu noqon doonaa 20 maadaama lagu siiyey ku celi dhageyso. waxaan sameyn doonaa, waxaan ku soo xili doonaa 10 ka mid ah ereyadan in aad jumlad aad gelisid. ereyga kaliya ku soo qori doonaa, jumlad asoo ku jira aad gelinaysaa 10 kaas. marka ogow ereyadan dhammaan were verbs, waa fal xibnaha laga sameeyo. waayahay. wish you nothing but the best for the best. Thank you guys.